kulanti wacan daawadayaal halkan waa channelka xaqiiqa news qodobada wararka saaka uu idin haya waxaa kamid ah maxaa ka jira in Jubbaland ay ku dhawaaqayso gooni u goosad daahir geelle oo shaaciyay inuu xilka uga dagay arrimo xasaasi ah oo ay madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ku lug yeesheen qodobo dastuuri ah oo laga rabo in Kenya looga joojiyo kiiska maxkamadda ICJ iyo Sacuudiga oo ugu dambeyn lagu qasbay inuu aqbalo soo jeedinta Xuutiyiinta Yemen qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka maanta ee channelka xaqiiqa news waa sabti taariikhduna ay ku beegan tahay 5 bisha tobnaad sanada 2019 warkiyo fidsan madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe ayaa sheegay in cadaadis xoogan ee kaga imaanaya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya uusan ku qasbi doonin in ay ku dhawaaqaan gooni u goosad iyada oo xukuumadda hadda jirto lagu eedeynayo in ay ka soo horjeedo nidaamka federaalka Axmed Madoobe ayaa carabka ku adkeeyay ahmiyadda ay leedahay in la xoojiyo nidaamka ay dadka ku heshiiyeen deeqaha lacagta iyo qaybaha kale ayuu ku nuuxnuuxsaday Axmed Islaam Axmed Madoobe in lagu koobay filla Soomaaliya markaan Jubbaland ka hadlo 2 sano ee ugu dambeysay waxaas ayaa idin soo gaaray ma jiraan haba yaraatee maamulka hawada ee dalka dib loogu soo celiyay sanado kadib ayuu tibaaxay Axmed Madoobe in dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay muujisay in aan lagu haleyn karin xitaa wax ka sii weyn oo ay Soomaaliya leedahay waan ka tashan doonaa ayuu Axmed Islaam yiri madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe ayaa sheegay in Jubbaland ay tusaale u tahay Soomaaliya maadaama ay degto Soomaaliya oo idil ayna ka mid tahay meelaha khilaafka dadka ragaadiyay ay ka bilowdeen dib u heshiisiinta qoto dheer oo la sameeyay ayuu natiijada ka soo baxday waxay noqotay in bulshada ay ku heshiiyaan dhismaha maamul ka shaqeeya nidaamka dalka danahooda iyo horumarkooda Axmed Islaam Axmed Madoobe ayaa ka hadlay xaflad ka qabsoontay Kismaayo caasimadda ku meel gaarka ah dawlad goboleedkaas ayuu soo qaaday xaaladda guud ee dalka oo ay ku jirto siyaasadda iyo amniga wada hadal foolka fool ah oo ay la galaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayuu albaabada u furay si loo soo afjaro kala taagtaaga hanaanka filla Soomaaliya ayuu ku eedeeyay iskoobida talada dalka tacbiir ama fikir qof leeyahay waxba lagu ma sameyn karo ayuu yiri madaxweyne Axmed Islaam Axmed Madoobe oo xaflad ka dhacday Kismaayo hadalkaas ka sheegay وهاجا قولي واحد للصعطان ورركا وإذن هيو channel كحقيقة نيوز وزيركي هراء وزارة ورفافينتا حكومة الصومالية داهر محمود جيلي oo su'aalo lagu weydiiyay madal loogu magac daray falanqaynta siyaasadda Soomaaliya maanta iyo mustaqbalka taas oo ay si wada jir ah u soo agaasimeen qaar ka mid ah idaacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ugu horeyntii daahir geelle ayaa sheegay in sababtii uu xilkii wasaaradda warfaafinta uu isaga casilay ay salka ku haysay kala aragti duwanaansho ah qaabka ay madaxda dalka ula dhaqmeen siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo maamul goboleedyada dalka oo uu sheegay in ay dagaal toos ah kula jiraan taasna ay u cuntami weysay isagu mar uu dul istaagay caburinta siyaasiyiinta ayuu sheegay daahir maxamuud geelle in uu aad uga xun yahay weerarkii guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur lagu qaaday oo uu ku tilmaamay xasuuq aan sabab lahayn haddii uu jiro qalad la galay oo dhabar jab ku ah dawladda laga soo bilaabo carta ilaa maanta waa weerarkii lagu qaaday guriga hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sidoo kale isor istaagii lagu sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayuu ku tilmaamay nasiib darro kale oo meel uga dhacaysa maamuuskii uu lahaan jiray qofkii mar soo hogaamiyo dalkan Farmaajo ayuu kula taliyay haddii uu rabo in la maamuuso oo hadhow la sharfo sidii madaxweyne dalkan soo maamulay in uu hadda sharfo madaxdii isaga ka horeysay mar wax laga weydiiyay daahir maxamuud geelle intuu xukuumadda ku dhex jiray waxa uu kala socday qorshaheeda doorashooyinka ku soo wajahan dalka ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddu ay ku howlan tahay sidii ay talada
ugu soo laaban lahayd oo ay tolayso shaati aan u gelin qof kale sida uu hadalka u dhigay. mar kale subax wanaagsan akhyaarta qadarinta iyo qiimaha inaga mudano weli waxaad nagala socotaan channelka Xaqiiqa News. koox Kenyan ah ayaa doonaya in dawladda aysan wakiilo u dirin dhageysiga kiiska dacwadda badda ee Soomaaliya ee bisha November ka dhacaysa xarunta maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ ee magaalada The Hague. kooxdan ayaa doonaya in maxkamadda sare ee Kenya ay ka joojiso xeerlaaliyaha guud ee dalkaas, wasiirka arrimaha dibadda iyo xafiiska xuduudaha caalamiga ah ee Kenya ka qaybgalka kiiska badda Soomaaliya iyo Kenya, sababtuna ay tahay in xadgudub ku yahay dastuurka. kiis ay diiwaan gelisay maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa kooxdan waxay ku doonayaan in go'aanka maxkamadda uu hogaamin karo isbeddel ku yimaado xuduudaha Kenya iyada oo aan afti la qaadin sida uu qabo dastuurka dalka Kenya. Kenya ayaa horay ugu guuldareysatay doodii ay ka hor jeedisay maxkamadda ICJ ee ahayd in sharciyad u lahayn in kiiska ay gudagasho. maxkamadda ayaa la filayaa in maalmaha soo aadan ay shaaciso go'aan ku saabsan in kiiska mar kale dib loo dhigayo sida ay codsatay Kenya iyo in kale. Soomaaliya ayaa doonaysa in kiiska la dhageysto waqtigii loo qabtay oo ah 4 November ee 2019. warkaas waxaan saaka ah wuxuu idinkaga imaanayaa channelka Xaqiiqa News. boqortooyada Sacuudiga ayaa qarka u saaran in ay aqbasho xabad joojin ayaan kooxaha Xuutiyiinta Yemen, taas oo haddii ay dhaqan gasho xoojin karta dadaalada ay wado qaramada midoobay ee lagu soo gabagabeynayo dagaalka Yemen ee burburiyay sumcaddii Riyaad. Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa 2 toddobaad ballan qaaday in ay joojinayaan ridayaan Sacuudiga haddii isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ee dalka Yemen kala sameeyaan. ma jiraan wax aqbalaad ama diidma ah oo Sacuudiga ka soo yeeray ha yeeshee Riyaad ayaa toddobaadkan soo dhaweynaysa Yabooha. waxay 3 diblomaasi iyo 2 ilo wareed oo kale ay sheegeen in Sacuudiga ay ka fakarayaan in ay aqbalaan xabad joojinta. ilo wareedyada ayaa wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay u sheegeen in duqeymihii Sacuudiga ay la beegsan jireen dhulka Xuutiyiinta Yemen ay maamusho ay aad hoos uga dhigeen, isla markaana ay jiraan sababo rajo wanaagsan looga qabo in dhawaan heshiis la gaari doono. wasiir ku-xigeenka difaaca dalka Sacuudiga Amir Khalid bin Salman ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in boqortooyada ay Yabooha xabad joojinta Sacuudiga u aragto arrimo wanaagsan, isaga oo xoojiyay hadal noocaas oo kale ah oo ka soo yeeray Maxamed bin Salman oo ah ninka sida aan rasmiga ahayn u maamulo Sacuudiga. warkii aad kala socoteen channelka Xaqiiqa News saaka waa naga inta. waad ku mahadsantihiin la socodka warkayaga subaxnimo.